بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن صاحبي لدلهانتين با صباح وناكسان كسو دوادا وركي صباح او آلا بحيليغان او كلاad ka maqashaan radio Kismaayo codka Jubbaland qodobada ugu waaweyn ee saaka aan ku hayo warka waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay mid kamid ah musharaxiinta madaxweynenimada dalka waqtiga la soo gabagabeynayo dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa oo la shaaciyay tirada dadka u dhintay cudurka corona Soomaaliya oo gaaray meel sare Soomaaliya oo war ka soo saartay geerida madaxweynaha wadanka Tanzania Uganda oo ciidamo horle u soo diraysa Soomaaliya xubinta ciyaaraha iyo qodobka warka dibadda oo ah madaxweynihii Tanzania oo geeriyooday xalay waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan watahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble iyo musharax madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa ka wada hadlay sidii doorasho nabdoon ah oo daahfuran dalka ay uga dhici lahayd ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ballan qaaday in ay dalka ka dhacayso doorasho la isla ogol yahay oo jawi nabdoon ku dhacda musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa hore kulamo kala duwan ula qaatay qaar ka mid ah madaxda maamulka goboleedyada waxaana waxyaabihii uu kala hadlay ay qusayeen doorashada dhawaan dalka ka dhici doonto maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa shaacisay waqtiga uu dambeeya ee la dhageysan doono dacwadda muranka badda ee u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka socotay maxkamadaasi si hayaa xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in maxkamadda ICJ ay go'aan ku gaartay in dacwadda ugu dambeysa ee badda ay dhageysan doonto maanta oo Khamiis ah maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa galabta 3:00 galabnimo xilliga Hague dhageysanaysa gunaanadka dacwadda baddeena ee inagala dhaxaysa Kenya ayuu yiri Mahdi Guuleed oo hogaaminaya wafdiga dawladda u dirtay magaalada Hague maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa si rasmi ah u diiday codsi ugu yimid dawladda Kenya oo ku aadan in markii afraad dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda oo muranka gelisay iyadoona diiday ka qaybgalka dhageysiga dacwadda qareenada u doodaya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigay mowqifka Soomaaliya ay ku aadan sida ay tahay in loo xadeeyo xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan qareenada ayaa waxa ay sheegeen in Soomaaliya doonayso 3 arrimood oo kala ah in maxkamadda caalamiga ah ay si cad u xaqiijiso xaqa ay Soomaaliya u leedahay dhulbadeedkaas in diiwaan geliso xadgudubyada ay Kenya sameysay iyo in la joojiyo talaabooyinka Kenya ugu yaraan 1,300 oo ciidan ah ayaa iska xaadiriyay xarunta tababarka taageerada nabadda ee Zingo si ay tababar u qaataan ka hor inta aan loo dirin Soomaaliya bisha Oktoobar ugu yaraan Uganda waxay qorsheynaysaa inay u soo dirto Soomaaliya 2,752 oo keed ah oo ka socda ciidamada loo yaqaan UPDF kuwaas oo loo maleynayo inay dhisi doonaan kooxaha loo yaqaan Battle Group 34 iyo 35 si loo geeyo inta u dhaxaysa Oktoobar sanadkan iyo bartamaha sanadka soo socda Soomaaliya UPDF waxay dib ugu yeertay ciidanka keedka bishii Janaayo iyada oo loo marayo xafiiska taliyaha ciidamada keedka General Charles kooxda loo yaqaan Battle Group 34 ayaa bedeli doona kuwii hore
uga sii shaqayn jiray soomaaliya ee loo yaqaano battle group daati oo la geeyay bishii December ee sanadkii hore waxay ka maqnaan doonaan tababarka bisha October waxayna diyaar u yihiin in la keeno Soomaaliya ayuu yiri General Akiki madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa tacsiid raanyale u diray shacabka iyo dawladda dalka Tanzania geeridii ku timid madaxweynihii dalkaasi John Magufuli madaxweyne Farmaajo ayaa si gaar ah ugu tacsiyay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Marwo Suluhu Saamiya iyo marwadii uu ka geeriyooday madaxweynaha Marwo Janeti Magufuli John Magufuli wiilka nin beeraleyda saboolka ahaa isla markaana noqday madaxweynaha Tanzania sanadkii 2015 ayaa geeriyooday isaga oo jira da'da 61 sano jir waxa mar lagu amaanay xanaankiisii diidmada waxyaabaha uu macna darada u arkay wuxuuna noqday hogaamiyaha hadaladiisu ay ahaayeen kuwa muran dhaliyay gaar ahaan sidii uu uga jawaabay xanuunka safmarka ah ee coronavirus-ka waxaa mar labaad la doortay sanadkii 2020 iyadoo ay jirtay in mucaaradku ay ku eedeeyeen in uu ku shubtay doorashada isla markaasina hanjabaado fara badan uu soo jeediyay ka hor inta uusan madaxweyne noqon waxaa lagu naaneysi jiray baaldoosarka sababo la xiriira in uu horkacayay barnaamij wadooyinka lagu dhisayo isagoo markaasi ahaa wasiirkii shaqada markii dambena waxaa lagu amaanay sida uu uga soo horjeestay musuqmaasuqa iyo sidii uu u necbaa khasaarinta ama beerdareenta lacagta wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaska ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus-ka tirada 24 saac ugu dambeysay laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka ayaa waxay tahay 1294 qofood waxaana laga helay 163 qofood meelaha laga kala helay ayaa waxay kala yihiin Somaliland ayaa waxaa laga helay 66 halka Banaadir laga helay 53 qofood Puntland waxaa laga helay 15 qofood Jubbaland waxaa laga helay 13 Hirshabeelle waxaa laga helay 9 qofood halka maamulka Galmudug laga helay 7 qofood guud ahaan 96 ayaa waxay yihiin lab halka 67 qofna ay yihiin dhidig waxaa la sheegay in 7 ruux ay u geeriyoodeen cudurka coronavirus-ka 24 saac u dambeysay waxayna ku geeriyoodeen Banaadir ayaa waxaa ku geeriyootay 2 ruux Somaliland waxaa ku geeriyootay 3 ruux Hirshabeelle 1 ruux Puntland 1 ruux ayaa ku geeriyooday waxaana guud ahaan bogsaday 23 qof tirada guud ee la helay cudurka coronavirus-ka Soomaaliya ayaa waxay gaaraysaa 9600 oo qof waxaana ka bogsaday 4329 qof halka dhimashaduna ay gaartay 392 qof wada saaxiibayaal inta aanan qodobka dibadda aan u gudagelin aan ku soo dhaweeyo saaxiibka socodda iyo xubintii isboortiga aad baad u mahadsan tahay Cado dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u gudubtay wareegga sideedamaadka Champions League kadib markii guul kaga gaartay kooxda Atlantic Madrid kulanka labaad ee lugta wareegga 16 qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay Emery hal ay ku hogaaminaysay kooxda kubadda cagta Chelsea daqiiqadii 34 Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii Emery hal loogu dhigay xidigooda qadka dhexe uga ciyaaro
qaybta labaad dheesha markay dib laiskugu soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aada u wanaagsan iyagoo sameeyey fursado badan oo goola loo filan karaya daqiiqadii 9aad caawin uu ka helay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan kooxda Chelsea ayaa waxa uu ciyaarta ka dhigay 2-0 waxaana inta badan ay niyad-jab ku noqotay kooxda Atlantic Madrid. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-1 ee Chelsea guul kaga gaartay kooxda Atlantic Madrid. celcelisaan iminka waxay haysataa 3-4 kulankii hore ee inta badan waxay kusoo adkaatay 2-2. xubintii ciyaaraha warka waa naga inta aan dib idinku celiyo cadow iyo qibaa warka ka dhima. waa tahay saaxiibayaal markaan qodobka dibadda haddii aan eegno madaxweynaha waddanka Tanzania John Magufuli ayaa xalay geeriyooday sida ay xaqiijisay Samia Suluhu Hassan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi oo dadweynaha kala hadashay TV-ga qaranka ee waddanka Tanzania. waxay sheegtay Samia in madaxweyne Magufuli uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala Dar es Salaam oo uu ku jiray ilaa iyo 6 bishan Maaj saqdii 3 toddobaad ee la soo dhaafay. Magufuli muuqaalkiisa lama arag iyadoo ay jirtay hadal haynta in uu geeriyooday. wuxuu Magufuli ahaa 61 sano jir sababta geeridiisana waxaa lagu sheegay in ay tahay wadna xanuun. dadka qaarna waxay leeyihiin wuxuu geeriyooday xanuunka COVID-19-ka. Magufuli ayaa markii ugu horeysay ku geeriyooday ayaa ku guuleystay madaxtinimada sanadkii 2015 wuxuuna la kulmay eedeymo ugu yimid wadamada reer galbeedka iyo xisbiyada mucaaradka oo ah in uu duminayo dimuqraadiyadda waddanka Tanzania. waxaa laguna neesi jiray bulldozer sababtoo ah wuxuu ku caanbaxay raxista siyaasadaha isaga ka soo horjeeday inkastoo uu mucaaradka dalkiisa uu aad u nacba. guud ahaan saaxiibayaal warkii subax saakay waa naga intaa. warka waxaa soo saaray soona jeedinaya Maxamuud Cali Xasan oo aniga ah saaxiibkay socoto ayaa warka igala qayb qaatay asaga ayaan inoo farsameynaya tan iyo warka lamid intaynu ku kulmi doono nabadgelyo